midda arrimaha shaqooyinka siiba midda dhinaca shidaalka wuxuu kaloo joojiyey maxaa la dhahaa Carney capital gains tax oo awal oo Trudeau uu rabay inuu kor saaro dadka lacagta leh moogtahay if you make a lot of money if you gain income ma badan then tax badan aad dhiibaysaa Carney waa joojiyey more in line with leeyahay conservative ki moogtahay so Trudeau asoo ahaa center left ayaa hadda Carney imaaday and it appears inuu yahay center right camal inuu yahay moogtahay and it'll be challenging how to gain markas momentum from NDP so ila support ka haduu midig u dhinaca moogtahay midigtan yar oo si kadayna waxa arkoyaa hadda uu ka helayaa support badan Quebec moogtahay ayagana kusooda oo maxaa la tradition ahaan lefty ahaayeen moogtahay laakiin hadda waxa imaaday national maxaa la jiray national hysteria oo leeyahay Canada identity-geeda ba under attack ah oo leeyahay Donald Trump wuxuu leeyahay Canada horba ka dhigo 51st state gobol kamida anagu naga mid dhigana amal oo anagu dhaanay hadda NFD soo celinayna Soomaaliya dhaxday oo kale moogtahay so imagine marka Soomaalida dhan waxay leedahay say Kenya noo qaadan kartaa anagu waxa leenahay hadda say Mareykan noo qaadan karaa so Carney dad badan oo conservative rabay inay aadeen economic iyo capital gains tax iyo carbon tax iyo ku mashquulsanaa hadda waxay taagan yihiin waxaan oo dhan waxa ma tarayso hadiiba Mareykan ta imaaday oo tarifna la saarayo anagoo isku haysan